بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، halkan waxaan kasoo gudbinaynaa casharkii labaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka. casharkeennii hore waxaan kusoo akrinay suuradda la yidhaahdo suuratulfaatixa. casharkeennan labaad wuxuu ka bilaabo doonaa suuraddii labaad ee qur-aanka oo la yidhaahdo suuratulbaqara. suuraddan waxay kusoo degtay madiino, waa suuro madaniye ah. waa tii aan soo niri, madaniye waxaa looga jeedaa waqtigii rasuulku madiine uu joogay oo 10 sanoo dambe ah ayay soo degtay suuradani. haddii uu rababa qur-aankaas madaniga ahi ha kusoo dega madiine banaankeeda wixii waqtigaa soo dego o dhan waxaa la yidhaha madani. suuraddan waa suurad dheer, qur-aanka suuradda ugu dheer 207 ama 6 aayado 68 macnaha 86 aayadood 286 ama 287 aayadood meelahaasa lagu sheegaa. waa suuradda qur-aanka ugu axkaamta badan. axkaamtii mucaamalaadka ayay kulminaysaa, axkaamtii nikaaxa ayay kulminaysaa oo noocyo kala duwan leh oo aada u fara badan oo u tegi doono. baacii iyo ribadii iyo waxyaabahaasoo dhan ayay ka hadlaysaa, dayntii iyo rahantii iyo dhammaan. suuraddan waxa weeye waa suurad aada iyo aada u fadli badan. waxaa fadaa-isheeda ka mid ah inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam: laa tajcaluu buyuutakum maqaabir, aw kama qaala sala allahu calayhi wasalam. guryihiina ha ka dhiginina qubuur. shaydaanku wuxuu ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akriyo, marka in oo guriga lagu akrista sunno weeye. waxaa ka mid a fadaa-isheeda ayada iyo suuratu ali cimraan inay maalinka qiyaamo dadka u doodi doono ay ka mid noqonayaan oo u shafeecaya qofkii akri jiray. markii qur-aanku uu shafeecayo suuratulbaqara iyo aali cimraana hogaami doonuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam. waxaa suuraddan suuratulbaqara loogu bixiyey kelimadaas baqarada ah ayaa ku soo aroortay oo saca ah. waa sac. sacaas magiciisa iyo qisadiisa waa u tegi doonaa. yacni kelimadaas saca ah ayaa magac looga dhigo. qur-aanka dhan magacyada loo sameeyey waa wax ku jira oo qur-aankii kulligiisa suuraddii kulligeeda waxaa lagu magacaabaa eray ku dhex jira. suuraddan marka bilaabaynaa bismi illaahi araxmaani araxiim. bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabay, allihii arraxmaani naxariista guud ku naxariisanayay oo adduunka markii la joogo muslimya gaal u naxariisanayay. allihii arraxiimi naxariista gaarkaa ku naxariisanayay oo markii aakhiro la tago muslimiinta kaliya u naxariisanayay. alif laam miim, allahu aclamu bimuraadih, ilaahay asaga og wuxuu oga jeedo bidalik arrinkaas oo kalimaadkaas ilaahay waxa uu oga jeedo asaga og. fasiro badan ama macnayaal badana culammadu u sheegaan sababtii ilaahay uu u adeegsaday. waxaa ka mid a erayadaas markii ilaahay uu isticmaalo carabina aysan garanayn waa ay soo jeesanayaan oo waxa weeye waxay u diyaar garoobayaan waxa ka dambeeya. waxaa kaloo ka mid ah in maaragtay qur-aankii oo luqadii carabiga aha kusoo degay in lagu keeno erayo aysan gara karin macnihiisa iyo macnahooda si ay u ogaadaan qur-aanku inuu yahay mucjiz oo ay ka fariistaan macnahooda. marka ilaahay wuxuu leeyahay alif laam miim, ilaahay asaga og wuxuu oga jeedo. dhalika alkitaab, dhalika kaasi, kaas waxaa lagu cabiraa shayga kaa fog. ilaahay marka qur-aanka wuxuu shay fog oga cabirayaa waa weyneyn la weyneynayo ee waxaa loo jeedaa haadaa kan. dhalika ay haadaa kan. alkitaabu kitaabkii weye, waa kitaabka qur-aanka ah kan maaragtay nabi alladii yaqra'uhu muxamed, waa kitaabka nebi moxamed uu akrinayo
laa rayba fiih kitaabkaas shaki kuma jiro, laa rayba shaki fiihi kitaabkaas dhexdiisa ma ahaano annahu min cindillaah inuu ilaahay xaggiisa ka yimid wax shakiya kuma jiraan. waa kitaabkii ilaahay oo nebi moxamed lagu soo dejiyey, shakina kuma jiro inuu xag alla ka yimid. hudan qur-aankii hanuun weeye lilmuttaqiin kuwa alla ka cabsanaya ayuuna hanuun u yahay, oo dadka alla ka cabsanaya ayaa ku intifaacsanaya oo ku dheefsanaya oo ka faa'iidaya oo cabsida alle uu u kordhinaya. laakiin dadkii aan ilaahay ka cabsanayn hanuun uma noqonayo. muttaqiintii a marka ilaahay subxaanahu wa tacaala tilmaan nooga bixinaya. marka ilaahay muuminiintii markuu tilmaamo kabacdi wuxuu ku xiji doonaa sidii ilaahay caadadii u ahaad, wuxuu ku xiji doonaa gaaladii caadiga ahayd, haddana wuxuu ku xiji doonaa munaafiqiintii oo muslimiintana ku dhex jiray gaaladana ku dhex jiray. waa kuwama muttaqiintu haddaba alladiina muttaqiintaasoo yu'minuuna rumaynaya bilghaybi waxa maqan rumaynaya, oo waxyaalaha annaga naga maqanoon aanan arkayn dadka rumaynaya. bacdigii soo bixinta hadhow dadka lasoo bixinayo, jannadii, naartii, miisaankii, abaalmarintii iyo waxyaalaha la midka waxa naga maqan oo dhan kuwa rumaynaya, kuwaas ayaa qur-aanku hanuun u yahay. oo qofka qeybka ilaahay rumeeyaahi waxa weeye inuu muumin yahay ayay caddaynaysaa. maxaa yeelay gaalada intooda badan waxay ku iimaan beeleen qeybkii aysan rumaysnayn, oo uu ka mid yahay bacdigii iyo soo bixintii. haddii bacdiga aysan rumaynna waxaa halkaas ka dhalanaya inaysan iimaan yeelanoo ay aaminsan yihiin haddamaba nala soo bixinayo cadaaba ma jiro. wa yuqiimuuna haddana oogaya assalaata salaadii oogayo, salaadii shuruuddeedii iyo arkaanteedii iyo sunanteedii khushuuceedii wixii oo dhan la imaanaya. salaadii dahaaradeedii saxaya. haddii salaada dahaaradeeda aadan sixin salaadaadii waxba kama jiraan ayay noqonaysaa. kuwaas markaas qeybkiina rumaynaya salaadana oogaya ayaa muttaqiin ah. wa mimaa rasaqnaahum wixii aan siinayna yunfiquuna ka bixinayo, waxay wax ka arsaaqayaan wixii aan siinay oo hantidii aan siinay sakadii waajibkaad ka bixinayaan, biilkiiay ka bixinayaan, sadaqadiiay ka bixinayaan, qaraabadiiay ka xiriirinayaan, agoontii uga gargaarayaan, masaakiintii uga gargaarayaan. wa yunfiquuna waxayna bixinayaan mimaa rasaqnaahum wixii aan siinay ayayna wax ka bixinayaan. sifaadka muuminiinta ayay ka mid tahay. muuminiinta sifaadkooda arrintaas ka mid tahay. waa yahay waaladiina kuwaasoo yu'minuuna rumaynaya bimaa unzila wixii lasoo dejiyey ilayka adiga laguu soo dejiyey. oo kuwaasi waxay rumaynayaan qur-aankii laguu soo dejiyey ayay u rumaynayaan. kitaabkaa nabi moxamed lagu soo dejiyey oo qur-aanka ahay rumaynayaan. wamaa kiina way rumaynayaan unsila lasoo dejiyey min qablika adiga hortaada lasoo dejiyey. hortaada wixii lasoo dejiyeyna way u rumaynayaanoo oo waxa weeye towraad iyo injiil iyo kutubtii ambiyadii hore la siiyey ayay rumaynayaan. oo ummadda nebi maxamed waxay dadka kale uga fiican tahay kutubihii ilaahay oo dhan ay rumaynayaan. laakiin ummadihii kale kutubtii ilaahay ma wada rumaynayn, waxay rumaynayeen qeyb kaliya. mathalan haddii ay nebigooda rumeeyaan, nebi ciise markay kuwa rumeeyaan, nebi muuse ma rumaynayn kitaabkiisii. kuwii nebi muuse rumeeyana nebi ciise iyo nebi moxamed ma rumayn. marka kutubtii ma wada rumaynayaan. laakiin muuminiintu waxay uga duwan yihiin. kitaabka nebi moxamed lagu soo dejiyey way rumaynayaan. waxay kaloo rumaynayaan kutubtii ka horeysay ambiyadii ilaahay lagu soo dejiyo laa nufariqu bayna axadin min rusulihi weeye, ma kala geynayno ambiyada ilaahay oo dhammaantood iyo kutubtii lala soo dejiyey waa rumaynaynaa. wa bil aakhirati aakhirana hum ayagu yuuqinuuna yaqiinsanayo waxay og yihiin aakhiro oo in xisaab jiro, oo la is-abaal marinayo, oo cadaab jiro, oo janna jirto, oo miisaan jiro, oo bacthi jiro, oo xashri jiro, oo siraadkii jiro,
oo maaragtay howlahaasi dhici doonaan ayay yaqiinsan yihiin. markaasay waxay u camalfalayaan wanaagii ayay u shaqaysanayaan, xumidiina way ka dheeraanayaan. maxaa yeeley wanaaggii jannadii ayaa ilaahay sabab uga dhigayaa, xumidana naar ayuu sabab ugu noqonayaa. ulaa-ika kuwaas oo lasoo tilmaamo tilmaamahaas lihi calaa hudan hanuun korkiis ayay ahaadeen. hanuunkaasoo min rabbihim rabbigooda xaggiisa ka ahaaday. hanuun xag alla ka yimid ayay dadkaasi haystaan. dadkaas oo muttaqiinta ah, oo qeybka rumeeyey, oo salaadii oogay, oo waajibaadkii xoolahooda ka bixiyey, oo maaragtay kitaabkii lasoo dejiyey, nabi maxamed lagu soo dejiyey, ambiyadii hore kutubtoodiiba rumeeyey, oo maaragtay aakhiro yaqiiniyey. waa dad hanuunsan, hanuun alla xaggiisa ka yimid ay haystaan. wa ulaa-ika kuwaasi hum ayaga ayaa almuflixuuna kuwa liibaanayba ah. ayaga unbaaba kuwa liibaanay ahoo jannadii galaya, naartiina ka badbaadaya. cidda jannadiina galaysa naartiina ka badbaadaysa waa kuwaas. maxaa yeelay waajibkii la saaray ayay guteen, wixii laga reebayna way ka reebtoomeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu tilmaamahaas muuminiinta nooga soo sheekeeyey, halkan wuxuu ka gelayaa tilmaamo ay gaaladii caadiga ahayd leeyihiin. gaaladii caadiga ahayd uu ka sheekaynayaa, kabacdina munaafiqiintu ilaahay ka hadli doonaa. ilaahay wuxuu leeyahy ina aladiina kuwii kafaruu gaaloobay, kuwa gaaloobay waa gaaladii abijahal iyo abilahab iyo dadkii la midka ahaa oo ilaahay uu hubay oo ilaahay uu ogaa inaysan iimaan yeelanayna ilaahay sheegayaa. kuwaas gaaloobay sawaa-un waxaa siman calayhim korkooda a andartahum inaad u digtid am lam tundirhum iyo inaada u diginba. inaad u digtid oo digniin siidid oo naartii aad uga digtid iyo inaada u diginba waa u siman tahay. laa yu'minuuna mana rumaynayaan, iimaan ma yeelanayaan abijahl iyo abilahabba. maxaa yeeley ilaahay baa og inay gaalnimo ku dhimanayaan, waana ay ku dhinteen. marka nabiga allow iimaankooda ha damcin, wax iimaana ha ka rajayn, kuwaasi ma hanuunayaane ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay. waa isku mid haddaad hanuun ugu yeertid, haddaad u digtid oo cadaab ugu digtid iyo haddii kalaba. maxaa yeelay sababaha ay iimaanka la yeela waayeen maxay tahay? khatama allaahu ilaahay wuxuu daboolay calaa quluubihim quluubtooda korkoodu daboolay. ilaahay quluubtoodu dabooloo xaqiiba ma gelayo, qalbigooda xaqa uma fura. wa calaa samcihim maqalkooda korkiisana ilaahay waa dabooloo maqalkoodu xaqi uma fura. maqalkoodu xaqi uma fura oo ma maqlayaan. wa calaa absaarihim aragyaalkooda dushoodana waxaa ahaaday ghishaawatun dabool, indhahoodana daboola saaranoo xaqi ma arkayaan. marka qalbigoodii waa xiran yahoo xaq ma gelayo, dhagahoodiina waa awdan yihiinoo xaq ma maqlayaan, indhahoodiina daboola saaranoo xaqi ma arkayaan. marka haddaa u digtid iyo haddii aada u diginba waa isku mid. kuwaas isku mid weeye. waayahay walahum waxayna leeyihiin ayagu cadaabun cadaab ayay leeyihiin, cadaabkaasoo cadiimun weyn, cadaab weyn ayay leeyihiinoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga aarguda doono. cadaab daa'imahoo joogto ah waa cadaabka gaalada uu ku abaalmarinaya ilaahay ayaa weynankaas laga cabiraa, iyo mubiinka iyo kaas ayay leeyihiin nimankaasi. marka nabiga allow ha ku daalin kuwaas. waa qeyb ilaahay wuxuu ka hadlayaa uu ogyahay inaysa iimaan yeelanayn. qeyb ilaahay ogyahay inaysa iimaan yeelanayn wey. intaasna gaaladii caadiga aheeda tilmaamaheedii lagu soo gaabiyey. hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegayaa gaalada qeyb ka mid ah oo munaafiqiin la yidhaahdo oo muslimiintii ku dhex jira. markay muslimiinta ku dhex jiraan muslimiin iska dhigaya, markay gaaladii u tagaanna gaalnimadkoodii sheeganaya. ilaahay wuxuu leeyay wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man yaquulu qof odhanaya aamanaa waan rumaynay billaahi ilaahay ayaan rumaynay iyo walyawmi maalinka ayaan rumaynay al aakhiri dambeeyey. waxaa gaalada ka mida dad leh maalinkii aakhiro iyo waxaan rumaynay ilaahay, oo ilaahay aan rumayno maalinka aakhirana waa rumaysannahay. maxaa yeelay maalinkaas waa maalinka la isi soo bixinayo oo qofkii adduunyada ku rumay waayo lagu cadaabayo. marka waxay sheeganayaan iimaankiisii. wamaa hum bimu'miniin, wamaa hum ayaguna ma ahaanin bimu'miniin kuwa iimaan yeeshay oo rumaynaya ma ahana ilaahay leeyahay. waa beentooda mu'miniin ma ahan.
khayaanay wataanoo qowlkooda iyo qalbigooda iskhilaafsan. marka muuminiin maahana ilaahay leeyahay asagaa qalbigoodii ka warqaba. yukhaadicuuna allah, yukhaadicuuna waxay dhagrayaan allaha ilaahay ayay dhagrayaanoo waladiina kuwiina waa ay dhagrayaan, way khayaamayaan aamanuu alla rumeeyey. waxay dhagrayaan ilaahay iyo kuwa alla rumeeyey. oo dhagarta waxa weeye waxay muujisanayaan wax ka duwana u qarsoon. waxa qalbigooda ku jira wax ka duwanay sheeganayaan biidhaari khilaafi maa abtanuuh min alkufri. gaalnimadka u qarsoon wax ka duwan ayay caddaysanayaan si oo axkaamtan uga badbaadaanoo hadda gaalnimadkia lagula dhaqmayaa haddii ay waxa qalbiga ku jira ay caddaystaan. waayahay yukhaadicuuna waxay dhagrayaan allaha ilaahay waladiina kuwiina way dhagrayaan aamanuu alla rumeeyey. oo waxa weeye waxa ay muujisanayaan wax ka duwan ayay qarsanayaan. qalbigooda waxa ku jira wax ka duwan ay muujinayaan si ay uga badbaadaan axkaamtan adduunyada. wamaa yukhaadicuuna ilaahay macnaha muuminiinta ay dhagrayaan soomaana dhihin. wamaa yukhaadicuuna mana ay dhagrayaan oo ma khayaanayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda ma ahane. waxa ay khayaanayaan waa naftooda. oo waxa weeye hadhow dhibaatada ka imaanaysa khayaanadaas ayagay kusoo laabanaysaa waa cadaab. lianna wabaala khidaacihim raajicun ilayhim fayaftadixuuna fi dunya biiطlaaci illahi tacaala nabiyo. khayaanadaas natiijada ka dhalanaysa ayagay kusoo laabanaysaa. maxaa yeelay adduunyada lagu fadeexaynayaa, ilaahay baa nabigiisa ogeysiinaya, aakhirana cadaabaa u yaala. wamaa yukhaadicuuna mana dhagrayaan ilaa anfusahum nafafyaalkoodii ma ahane. wamaa yashcuruuna mana dareemayaanoo isma ay oga inay naftooda dhagrayaanna ma dareensana. oo waxa weeye ma ay oga in ay ayada kusoo laabanayso. maa yaclamuuna ana khidaacahum lianfusihim in oo ayagu naftooda ay dhagrayaan ma is oga. oo macnaha natiijada iyo ciqaabku hadhow ayaga ay kusoo laabanayaan. fii quluubihim quluubtooda dhexdeeda waxaa ahaaday maradun xanuun. quluubtooda xanuun ayaa ka buuxa. waa xanuunsanta quluubtooda. quluubtooda waa xanuunsantahoo shakiga iyo nifaaqa ayaa quluubta uga buuxa. quluubtiiu daciifinaya. fazaadahum allahu ilaahayna wuxuu u kordhiyey maradan xanuun. ilaahayna xanuunu usii kordhiyo qur-aanka uu ku soo dejiyey oo maaragtay ay ku gaaloobeen. xanuun usii kordhaya. waayahay fii quluubihim quluubtooda dhexdooda waxaa ahaaday maradun xanuun. waa gaalnimadka iyo munaafaqnimadka quluubtoodii daciifiyey. fazaadahum allahu marada ilaahayna wuxuu u kordhiyey oo u siyaadiyey xanuun. oo qur-aankii la soo dejiyey, qur-aankii ayay ku kufrinayaan. marka gaalnimadkii usii kordhaba. walahum ayaguna waxay leeyihiin cadaabun cadaab. cadaabkaasoo aliimun mu'limun xanuun badan wax xanuujinaya. cadaab daran ayay leeyihiin bimaa kaanuu bisababi kownihim ayaga ahaashahooda sababkiisayna ku leeyihiin yakdibuuna kuwa beeninaya ay ahaayeen. beeninta ay nabiga ilaahay beeniyeen ayay maaragtay ay ku leeyihiin. oo nabiga ayay beeninayaan. waxa weeye ama maaragtay beenta ay yukadibuuna nabiga ilaahay ay beeninayaan ama yakdibuuna ay been sheegayaan. yukadibuuna nabiga ilaahay beeninayaan ama yakdibuuna been ayay sheegayaanoo aamanaa markay leeyihiin aamanaa billaahi wa bilyawmi alaakhir marka ay leeyihiin beenay ku sheegayaan. waidaa qiila lahum haddii ayaga lagu yiraahdo laa tufsiduu ha fasahaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa. war ardada ilaahay ha fasahaadininoo gaalnimadka iyo iimaanka aad dadka ka reebaysaan ha ku fasahaadinina markii la yidhaahdo. qaaluu waxay leeyihiin innamaa naxnu annagu muslixuuna ayaan nahay. annaga unbaaba muslixiin ah. annaga ayaaba maslaxadba ka shaqaynaynaba. dad oo maslaxad iyo hagaag ka shaqaynaya ayaan nahay. soo arki maysid maantay dad fara badanoo maaragtay madax iyo ama maaragtay howlo bulshada u haya ee fasaad ku dhex jira iyo fidno, haddana dadkii maslaxa inay kaga shaqaynayaan isu tusinaya oo khudbadahooda
iyo hadalladooda aada la yaabaysid quruxdooda. waayahay annaga ayaa muslixiin ahay leeyihiin waxa aan ku dhex jirnaana fasaad ma ahan. ilaahay waa radiyey marka hadalkaasuu ka jawaabo inay iyagu mufsidiin yihiin oo ilaahay caddaynayaa. alaa inahum alaa warhay baraaruge inahum ayagu hum ayagu assufahaau alaa inahum hum ayagu almufsiduuna waa kuwa wax fasahaadinaya. alaa inahum ayagu hum ayagu almufsiduuna waaba kuwa wax fasahaadinayaba. cidda wax fasahaadinaysa oo dhulkan korkiisa fasahaadinaysa waaba ayaga, walaakin laa yashcuruun, laakiin ma ay oga bidaalika arrinkaas oo inay ayagu mufsidiintaba yihiin ma ay oga. waxay isu haystaan fidnadaas ay ka shaqaynayaan inay muslixiin ku yihiin. waayahay waidaa qiila lahum haddii ayaga lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu dadku sidii ay u rumeeyeen, sida asxaabta rasuulku iimaanka ay ula yimaadeen oo kale adinku iimaan ola imaada haddii la yidhaahdo